السلام عليكم ورحمة الله. كنت وناسن صاحبي المركلة ميل كستا جوجتان عبد الله كريع وعيد الله سو دhowaada markale muuqaalkan waxaan doonayaa inaan ku yaro gorfeeno gabayar oo aan ka soo dheegtay buuga halgamaa Ismaaciil Mire anigu horta gabyamihi waan ka afeefaray arintaas aad baan uga cudur daaranayaa gabayda ma tiriyo mana xifdiyo laakiin suugaantu de wad garanaysaan suugaanta Soomaaliyeed waa cajiib weey afkeena hodanka ah waxa qurxiya runtii duxda oo anihi u yeela labeenta ah waa suugaanta weeyaan noocyada kala duwan marka halkan waxaan ka soo qaadanaynaa gabay Ismaaciil uu u tirinayo wiilkiisa halgama Ismaaciil intiina taqaana waa taqaan intaan aqoonina wuxuu ahaa nin darweesh ah gabyaa weyn ragii aadku ugu dhowdhawaa halgamaagii weynaasay Maxamed Cabdulla Xasan Ismaaciil Mire wuxuu u gabiyay sayidka laftiis wuxuu u gabiyay ooriyadiisii xaasaskiisii qayb kamida sidaas la mid ah imanku wuxuu u gabiyay wiilkiisa in la oran jiray Cali marka Ismaaciil wuxuu ahaa nin runtii gabiyadiisu aad u qiimo badan yihiin oo dhiirigelin iyo wacyigelin iyo runtii meel badan taabanaya Ismaaciil wuxuu u gabiyay rag kibri oo ay kamid ahaayeen Aadan Galaydi wato gabaygii lahaa ragoo kibirka waa lagu kufaa ka haloogaado sayidka laftiisii uu ku soo daray gabaygaas marka gabaygan waxaan soo qaadanaynaa qaab wacyigelin maadaama odaygu wiilkiisa uu la hadlayay imanka inagu waxaan soo qaadanaynaa wacyigelin marka buugan baan akhrinayay runtii aad baan uga helay buugan waxaa qoray Axmed Faarax Ali Idaaja akhyaarta suugaanta danaysa waxay ka raadin karaan maktabadaha buugta Soomaaliga lagu gado ama online oo kale aad ku fiirin karaysaan marka gabaygan runtii Ismaaciil wuxuu ku canaananayaa oo kula hadlayaa wiilashiisii wiil kamid ahaa oo runtii aad u dhalin yaray waa nin halgamaaya dhalay oo xoolo badnaa oo maxaan ku dhaahday nin aan doonayn inuu wax qabto isagana wax qabsado bulshadana wax tar lahayn nin wuxuu ahaa odaygu ka fahmay inuusan doonaynin nafsadiisa mustaqbalkiisa nin doonay inuu wax qabsado inuu yahay marka uu canaananayaa uu dhiirigelinayaa dhinac uu ka canaananayaa dhinac wuxuu tusayaa waxyaalihii yacni uu qabtay odaygu wiilka dhinac wuxuu ka tusayaa oo ka tusaaleynayaa oo uu tusaale ugu soo qaadanayaa wiilashiisa kale dhinac kale wuxuu eegayaa oo ugu tusaaleynayaa odaygu yacni wax qabashada in wax la qabsado qofku wax qabsado inay ka muhiimsan tahay inuu qofka iska xarrigo dhinac wuxuu ka tusayaa odaygu rag inay hawadan macnaha dhulka meentay isaga tageen shaqo awadeed iyo xirfad awadeed rag inay meel kale ay wax ka doonteen gabaygan ku wada arkayna dhamaanteedba xagga ugu dambeysana waanihi gunaanadkii uu ka qaadanayaa bal aan idin kala baxo darweesh Ismaaciil Mire gabaygiisi gabaygan runtii xilxiliyada kamid ah xifdisanaa dadka nasiibku u yeeshay inay wax ku bartaan manhajkii waxbarashada Soomaaliya buugii suugaanta kalaaska 6-7 baa lagu dhigan jiray waa gabay macruuf ah runtii oo dad badan ay aad u yaqaanaan Ismaaciil marka wuxuu leeyahay oo wiilku uu kula bilaabayaa gabaygu waxa uu yiri Cali oo xusuus kugu dulle walad xumaadaaye xalun ban xadiis gabay la kacay oo xafiiltamay dhaqashada xaalaysanine maqal xuruufteyda dhaqashada xaalaysanine maqal xuruufteyda Abdi Xuseeni Xirsa ka xusuus badan Abdi Xuseeni Xirsa marka waa carruurtii odayga weeye Cali la dhashay marka halkan wuxuu ku tilmaamayaa waad aragtay bulshada Soomaaliya in mararka qaar loo isku dheeriyo carruuraha deriska ama dadka kale oo hebel ba ka yar fiican sida hebel oo kale si aad u noqotid waxaan sameey xogay anigu inkastoo aanan dadka taageersan ahayn in ilmaha yani lagu dheeriyo carruur kale oo liraa sida aad hebel u noqotid oo kale waxa sameey balse odaygu taa bedelkeed
isla caruurtii kale ee wiilka la dhashay buu ku yacnihii barbar dhigaya oo leeyahay iyagaa kaa xasuus wanaagsan oo kaa waxtar leh yacni waqtiga la joogo waa 1900 iyo hayaay iyo dee dad macnaha wadan iyo deegaan almost oo abaar mar la jirto oo mar barwaaqo iska jirto la aroorayo ceelashii iyo deegaankii la deganay ay kala fog yihiin oo xooluhu iyo waxa la manaafacsada ay yihiin in xoolaha la dhaqmo iyo waxa ka soo baxa marka waxa dareemaysan macnihii qofka baadiyaha iyo deegaanka joogo baa garan karay markaas oo kale ilmaha waxa laga doonayo qofka baa garan karay marka gabaygan ku soconaynaa wuxuu leeyahay cali wuxuu leeyahay ismaaciil miraan iraahde cali oo xusuus kugu dulle walad xumaada xalay baan xadiis gabay la kacay oo xafiltamay xalay baan xadiis gabay la kacay oo xafiltamay dhaqashada xaalaysanay maqal xuruufteeda cabdi xuseeni xirsa ka xasuus badan xadka qabada niman baa gubo soo xakaabsaday xadka qabada niman baa gubo soo xankaabsaday niman baa xiryaha deer ka dhiga xananta toomoode niman baa xajiga iibsadiyo xabaq qoroomoode yani xajiga waa dhoox ka mid ah xabaqta niman baa xajiga iibsadiyo xabaq qoroomoode niman baa xafaarka u guntada oo xabaal qoda niman baa xafaarka u guntada oo xabaal qoda niman baa dayuurado ku xiran xiima samadaas niman baa xaraga quursado xaarka iibsada wadareemi macnaha xaragadu markay ay danto duruufta iyo shaqada laga doonayo iyo wax qabadkaaga waxa weey waa inaad xarago isquursataan iyo adiga xarago waa inaad kala tagtaan niman baa xaraga quursado xaarka iibsada leeraha rag baa xamar u tagay xeeb intuu mare hablaha xor laceynta rag baa xeel ku guursaday odayguna doob buu ahaadii xagga lafteeda nin kaliya iska ahaayo aan lagu karin buu ahaa maraha guurka xajinimada niman baa ku tagay xadiyo laandheere wax dhaaxaan sidikaha kuugu xiray wax dhaaxaan sidkaha kuugu xiray xaruf iyo booge wax dhaaxaan xagaagii wanweyn xawda ku jare wax dhaaxaan sidkaha xoodiyoon ku xabad riday kulli xawalay tahay dad waa xagafsanayay soddon baan ku xasaanshay iyo waliba xaabxaabe kugu xiiqay sidaan ku lahaa xaaxiyahay toose xagun labada daarood ku daran ha is xakamin meele laba eray baa halkan ku jira oo baahan runtii tafsiir yar ustaadka buuga qoray oo ah Axmed Faarax Ali Idaaja xagga hoose buugtiisa waxaan ku jeclahay wuxuu raacayaa eray bixinta eraygii uu ku macnaynayaa marka halkan laba eray uu ku sheegay oo ah xasaanshay waxaa la yiraahdaa xoolaha marka la aroorinayo waliba ariga waxaa jira neef aan raacin ama qayb aan raacin oo tabar lahayn oo aroorka aan ka qayb galaynin oo guriga lagu waraabiyo marka odayga wuxuu ku tilmaamayaa nin anihii dadku marka ay hatta meelo badan ay u risq raadsanayaan isagu gurigu wiilka macnaha ku qoodin jiray oo kamar dhinaca kale macnaha weyn baan xawda ku jiray marka waxa macnaha 30 baan ku xasaanshay 30 sanadood baan guriga hoostiisa iyo hareerihiisa macnaha xoolaha iyo hilibkooda iyo subagooda caanahooda kugu siinayo oo on kugu nafaqeynaya bule oo macnaha galad sheeganaya muqt eray kala waxaan macnaha halkan ku jiro isagana ah naday akhyaarta qaaraysan geerinay kugu xiiqay sidaan kula xaxiyayto xaxidu oo magac kale waa magac idaha loogu yeero idaha ariga ida iyo real kaliya raada dabcan madaxyamadooda idaha lax kaliya ma ahe wan ba xataa ku jira muqt marka odaygu wuxuu ku soo gabagabeeyay gabaygiisan oo aan macnaheedu dulucday halkan u soconayta halkan doonay inaan wax ka qaadano qodobka dhan ee runtii igu kalifay inaan gabaygan aan idin soo gudbiyo iyo taariikhda yar ee ku gadaaman waxaan doonay inaan wax ka qaadano waa qodobka aan doonay runtii inaynu ku baraarugno wuxuu leeyahay Ismaaciil kugu xiiqay sidaan ku lahay xaaxiyahay toose xaqun labada daarood ku daran haysa xakamin meele wiilka canaantii uu ka qaaday iyo runtii ciil kaambigi uu ka qaaday gabaygan waxa la yiraahdaa wuxuu isqoray
ciidamada Talyaaniga ee dalka ka talinayay dhinaca koonfureed dagaalkii labada adduunka uu ka qayb galay ayuu ku geeriyooday Allah u naxariisto marka taariikh ahaan gama wado laakiin waxaan doonayaa inaan akhyaartii dhalinyarada soo akhyaar badan ma jirto imanka waa lagu kari laayay inay wax qabsadaan lagu kari laayahay inay yacnihii hal abuur iyo shaqo la yimaadeen lagu kari laayahay waalidkii laftoodii oo yacnihii ku tacab beelay oo soo koriyay oo wax baray xataa inay weli soo taaganaysan caawinayn laga yaabay inay hooyadii wiilkaasi ay yacnihii suuqa la fadhiisato ganacsi yar ay ka bisho ay ka quudiso ay wax ku soo bartay oo welina uu hoos taagan yahay uusan hal malna caawinin isagina uusan doonayn inuu dhinac u dhaqaaqo marka waxa uga gon leeyahay aniguna inaan iraahdo يعني حقن لبدا دارود كدرن حاس حكمين ميله ومهم إن آخرة الدنيا هذا بعد يعني وشقتك تدل حقبست يعني حوجا وقتك عاد يعني هي أود اللي هذا هينات عاد وشقيست شخصيات هذا مستقبل كاجا دي والد كلفتي سو ما أنت حوجا ليهن حوجا ملهان دونا حارده يسبدل دونا هم بقى مسكين من دونا مركا إنه قفك إسكسو تاجنا هذا وحقبض الآن مسكن نول يحي wax la amaanay ma aha diineen iyo maadeen wax la amaanay ma aha marka xaqun labada daarood ku daran aas xagamal meelay aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh